السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا توم جرافيكس maanta cashirkeen saddexaad waxaa ku baran doonaa qaybta workspace-ka. Muxuu yahay workspace? Qaabkee u nidaamineynaa workspace-keena iyo sababta ugu baahannahay inaan nidaamino workspace-keena. Okay, software-keena noo soo fur. Sida cashirka hore aan ku sheegnay shalay, qaybta ugu horeysa taabanayna new project. Shalay waxaa sameysanay project ku qoran example 1 asaga noo soo kici. Okay, workspace waxaa lahaa panels-kan oo dhan u jeedid oo cashirkii shalay idin kugu sharaxay oo la isku geeyay haddii ahaan lahayd source monitor, project panel, timeline iyo weliba program monitorka. Midda kale maxaa uga baahannahay inaan nidaamino workspace-keena. Workspace-keena markaan nidaamino waxa uu naga caawinayaa hadhow markaan muuqaal edit gareynayno inuusan waqti badan nooga bixin toolska u baahannahay raadintooda. Marka uu workspace-kaaga nidaamsan yahay waxaa taqaanaa shay walba meesha uu yaalo. Okay, qaabkee u nidaaminaa workspace-ka marka? Si aan u sameysano workspace anaga noo gaara ugu horreyn waxaa iska tiraynaa kuwaan meesha ku yaalo dhan. Si aad mid walba u tirto waxaa sameynaysaa inaad mid walba korkiisa tagto and then right click aad dhahdo close panel aad dhahdo. Mid walba sidaas ku sameey dhammaantooda. Okay, markay saana wada tirtirno si aad u sameysano marka workspace anaga noo gaara waxaa tegaynaa qaybta window-ga. Dhammaan waxaan inta ku wada safan waxaa lahaa panelska hadda aan wada tirtirnay. So waxaa ka bilaabeynaa program monitorka. Marka program monitor soo doorano kadib haddana window ku laabo source monitorka noo soo qaad haddana. Kadib haddana waxaa noo soo qaadaa timeline. Sidoo kale waxaa soo doorataa haddana effect controls. haddana effects haddana tick soo saaro. haddana waxaa sidoo kale soo qaadataa toolska. kanna waa soo qaadaynaa dhinacana dhigi doonaa. effect controls asagana waa soo qaadi doonaa dhinacana dhigi doonaa asagana. kadib saa u hagaajiso. markaasaa soo wada hagaajisato wixii kale ka dhimanaa soo gashanaysaa oo muhiim aad u baahan tahay. Essential graphics noo soo geli. Essential graphics asagana inta geli dhinacaan. dhammaan markaasaan u soo wada save gareysato wixii aad u baahan tahay dhan muhiimadda aad soo wada dhigatay inta si aad u save gareysato marka workspace-kii aad sameysatay waxaad tegaysaa window qaybta workspace-ka kasii tegaysaa. kadib waxaa kasii tegaysaa save as new workspace. kadib magac u baxso. anaga hadda waxaan u baxsanaynaa Google Academy. Okay, kadib markaa seefato oo wax kaaba bedelmaan panelska meelaha aad soo dhigatay ay wax ka bedelmaan. tusaale qaybta source monitorka ka daleedmay, qaybtaana intee baxday inta aaday waxaasoo dhan awood is dhibin kaliya waxaa aadaa window workspace tag waxaad taabataa reset to save it layout. mid walba booskiisu kusoo noqon doonaa. marka waxaan rajeynaa workspace waxa la inaa si fiican u fahanteen. cashirkeena maanta halkaan inoogu egyahay. waa mahadsantihiin dhammaantiina. waxaa noo balan muuqaalka xigo.